السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. intaas kadib walaalaha dhammaan ee dunida daafadeeda joogaan waxaan ku salaamay salaantaas qiimaha badan. janalkan cusub aan u magacinay Faanoole Janal. Faanoole ujeedadiisu waxay tahay oo ugu muhiimsan in looga hadlo arrimo dhowr ah. arrimahaasna wuxuu yahay mid ku horeysa oo ah arrimaha wanaaga sheeg oo iska dhaaf balaaye sheegnimada, oo qofka waxa waye falyaqul khayran aw liyasmut. waxaan waxba kuu tarayna biri oo aakhiradaada dhaawacaya inaad ku hadasho maahin, waa inaad iska ilaaliso. wanaag sheeg, ya falyaqul khayran ayaa kelimadeedana koowaad tahay. qeybta labaad tarbiyatul awlaad, inaan qodob u dul istaagno caruurta tarbiyadooda ayaa ajandayaasheena ka mid ah. haddii allah awooda leh, mas-uuliyadda yaa iska leh, labada waalid, qaab la dhaqanka caruurta ku nool reer galbeedka iyo arrimo noocaas ayaan ka hadli doonaa. qodobka kale oo u dambeeya waxay tahay arrimaha qoyska. arrimaha qoyska waxa waye guur, maxaa la dhahaa, qaladaadka guurka iyo isku dhaca qoysaska ama burburka qoysaska oo galbeedka aada ugu badan. asbaabta keenta ayaan isku dayi doonaa insha allah, iyadoo dhacdooyin badan aan goobjoog u ahay, kuwo kalena aan mustaqbalka haddaan nool nahay aan arki doono, iyo in qeybta afraad oo ah in janalkan u sameyno dadka wadanka Netherland degan ay ka helaan meel ay ka baran karaan luuqadooda Hollandeeska ah ama luuqada Dutchka waxa loo yaqaanaa, haddii allaha awooda la yiraahdo mustaqbalka. walaalaha marka Faanoole hadafka loo sameeyey waa sidaas. waa hadaf ah ummadda in wanaaga loo sheega, hadaf ah ummadda in la walaaleeya, ummadda inay walaalo yihiin meel kastoo joogaan. haddii ay noqon lahayd dhinac siyaasadeedna wanaag laga hadla, dhinac mujtamacna wanaag laga hadla, dhinac fardina wanaag laga hadla, ee layska ilaaliyo in un xumaan aan faafino, oo balaayo aan sheegna, oo dhibaato sheegna, oo qax sheegna, oo maaragtay nimcooyinka ilaahayna siiya aan wax badan xusi weyno. ilaahayna nagu soo celcelina, wain tucuduu nicmat allahi laa tuxsuuha wa ama ma binicmati rabbika faxadith. waxaasoo dhan ayaad u maleysaa mararka qaar inaanan xaqiiqda ka hadlaynin. nimcooyinku alla ku siiyey maad xustid, adiga meesha qaaqlah oo qaylinaysa. waxaa ka mid afkanaad ku qaylinayso, carabkaas alam najcal lahu caynayn walisaana washafatayn wahadaynaahu najdayn. marka carab baa lagu siiyey, af baa lagu siiyey, waad iska qaylinaysaa. maxaad ku qaylinaysa? marka kelmadeena u muhiimsan waxa waaye falyaqul khayran aw liyasmut aw liyaskut. inaad kheyr ku hadasho amaad iska aamusto. ummadda wixii faa-iida leh usoo bandhig, waxbarasho usoo bandhig, aragti soo bandhig, waayo aragnimo soo bandhig, warar caalamka la jan qaaday soo bandhig. laakiin maantoo dhan un tuuladii aad ku dhalatay iyo waddankaa ka dhalatay un musiibaha ku ahayn, oo adiga dhibaataha ku noqonin. waddanka waa waddankaagii, adaa ka soo cararay, guri aadan lahayn baa joogtaa halkan, oo reer galbeed ku siiyey. markaasaad waxaa rabtaa dhulkaagii inaad dab ku horiso, adigoo isticmaalaya qabyaalad, adigoo isticmaalaya magac mucaaradan ah, adigoo isticmaalaya arrimo kaloo ka duwan. marka waxaa muhiimad ah inaad isweydiiso, adiga maxaad asbaabta halkan u joogtaa? wadaniyadaa sheegata, waxaad tiri waddan baan deganahay. marka waxaa fiican qofka tiisa daryeela tu kala ku dara. horta qof walba duruufaha iyo danaha kuga xayraran inaad maaragtay waxaad ka qaban karta mujtamaca ka qabata, ilaahay inaad ka cabsata. wax kastood ku hadasha way ragoorgaraysan yihiin, maalin baa lagu weydiin. ilaahay wuxuu dhihi doonaa waqifuuhum inahum mas-uuluun. hala joojiyo, hala weydiiyo. marka aan iska ilaalino, aynu noqono dad walaalo ah oo wanaaga isfara, oo maaragtay kooxaysigan iyo qabyaaladan iyo waxyaalahaas aan ka weynaano, caqligeena ha ka koro.
marka hadafka loo sameeyey fanol jalo waxaa waaye ummadda soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan, qof walba aragtidiisa xor u yahay. waxaana rajaynayaa wax kastoo fikirkaaga ah sax iyo qalad committeesaa noogu dhaafaysaa, anagoo qadarinayna oo tixgelinayna aragtidaada. wixii talo iyo waanana waan qaadanaynaa, naseexada waan u baahannahay, bini aadanaa nahay, ma dhammaystirnin. sidaa daraaddeed marka dad badan oo na dhageysanayo oo naga afkaar fiican oo naga ra'yi fiican ayaa jira. bini aadanka ma sina, laakiin annaga waxaan rabnaa afkaarteena iyo ra'yigeena inaan soo bandhigna. wixii wanaagan soo bandhignayna inaad nagu taageertaan, wixii aan ku qaldanayna inaad si wanaag noo soxdaan oo maaragtay mindi mindi gudaag aysan noqonin. waxaan idin leeyahay meel kastoo duniyada ka joogtaanba waxaan idin leeyahay waxaa idinkaga tegay amaano allah.